shaqada markaas la soo raadsahay aniga gabdha isla soconi oo soo tusiyaali dhaay shaqada laba bil ka hor dhaawac soo gaaray ayay la jiftaa isbitaalka Madiina Maryan Daawud Isxaaq waa 16 sano jir reerka u weyn waxa ay lahayd hami sare iyada oo u socota shaqo markaas uun ay heshay ayaa waxaa jiray gaari iskoroga ah kaasi oo dhaawac halis ah gaarsiiyay lugteeda midig lugta wax ii gaari baaki dhaawac ii gaari baawar aragid soo ahaay laami bakaara gooyay laami dhinacaan baawrka soo socon baawrkani asna wax yar la isku jirno aan waxa isdhaay baawrkan ku soo gaaraaye laamiya gooyay me way u imaaday dabara u dhacay mashruubiyadka dhabarka ii gal lugtii waxa isku qabtay mashruubiyad mashruubiyadka lugta isku jiiday hilibka dhan waa dhacay macala cirib talaan duubna hilib ma laho kadib habeenkii isbitaalka kala liigay rugta waa ii soo duubay waalidiinta la yiraahday adiga markaas shaqo ma ka soo baxday shaqo ku jirtay markaas la soo raaday shaqada shaqada maxaa ka shaqaysaa ya maxaa ka shaqaynaysaa ma oho shaqada markaas la soo raadsahay aniga gabdha isla soconi oo soo tusiyaali dhaay shaqada waa markaas la soo fiiriyay shaqada hayaa bari ma waxa 5 saac ma soo baxnay shaqada maxaa u raadinaysaa sababta maxaa aabe ma shaqay kar hooyada aabe ina caawin muraasino shaqada aan guradii fadhi maxaa ii tara wax kasta ay u dhac kar si saac ma hada baawra idardari hooyada aabe gacan far wax ma ku heeyaan xaaladda Maryan waxaa la murugaysan waalidkeeda maadaama gabadhooda ay u baahan tahay daryeel caafimaad oo sareysa si qalliin loogu sameeyo lugteeda midig oo haddii aan laga gaarsiin jaris noqon karta taasina waxay u baahan tahay dhaqaale aysan reerkan awoodin muddo waxay ku jirtay 23 bari waa la soo bixi xaliir marka waa la dhayaa hal soo noqaaleeri guriga geesta guriga markan geeyna meesha asad 2 bari ka bacdi ala soo noqaaleeri magtay 2 bari ka bacdi waa soo noqnay waxa la yiri isbitaal Madiina keena hadii kan ilaa iyo hadda laga joogo arbad daawo male wax la durooyo male yaa gabarti dhaxaana ka soo anigu daawo oo god baast anaabteed ilaahay rasuulka oo marka waa la soo dhaqooya waa la soo duubooya anta la keenaya shalay lugta waa urti waa igu urti kaas aan si amalay meesha ane dadka waa kaswaasiin xaaladooda si amal waa leh saaka marka dua ali wada gabarta oo ka kala soo dhaq gabarti ala gadi ala geey ala soo dhaqay shalay ala keen marka ilaa hadda jeefta qarashaad mobile asbitaal qarashaad u baahan ku xawaay dad ba sidii mogtay dadkii oo sidii hatta ilaa hadda waa kala yay shishiira inta qanaa weyn saamay hatta ilaa shishiira loo keen gabartan kala yay qadada bas oo $4 soo tuureen ka badan istay tuureen waa u sheegay waxaan dharmaan dhamaysi inta ku rafaadnay wax aan ku soo gadan shishiira ma haysanaa shishiiriga nool keeno gabar meeshan joogto oo cidooda oo ku wareey ku xabili gabadhii oo ani ka sugaysi warkaayna dhamaa ka baxday aska dhaafana ilaa qabna meeshaan iska jiifay anti cidaana keenti yarka oo baawul ku dardari anta noo keenay ilaa hadda odayaashoodan ma iimaanoyn gurigooda iska raaxaysanooyin Maryan ayaa qabta rajo ah in mar-uun cagaheeda ay ku istaagi doonto ayna u shaqayn doonto reerkeeda ana waxaan jeclahay lacagteeda ku socdo alxamdulillah oo guriga soo dhacsad oo aabe u shaqeeyo jeclaan lahay والله dadkii waxa ka codsaa dhibkeeba u jeedaan ma hooyada abeen maskiin wax ma haystaan intii iikana wax igu soo tarkaan inay wax igu soo taraan si aan xog uga helno reerka dhaawaca gaarsiiyay gabadhan
ayaanu la xiriirnay ha yeeshee waxa ay diideen in kaamirada ay ka soo muuqdaan balse waxa ay noo sheegeen in dhaawaca gabadhan la gaarsiiyey intii karaankooda ah ay markaa kala qayb qaateen sidii daawo loogu heli lahaa. aabbaha gabadhan ayaa ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdiisa waxa uu ka dalbanayaa in caawinaad daawo ah la soo gaarsiiyo gabadhiisa. dowladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay gargaar dowladda iyo dadka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay gargaar ii fidiyaan oo wax soo koleen furaha 8 10 24 ewer 5 waa 8 10 24 ewer 5. Maxamed Yaxya Jinow, Warbaahinta Nation, Muqdisho.